Haddaba maanta mawduucan waxaa marti ku ah nin indhoole ah oo ku dhashay Hindiya oo Hindi wax ku bartay, kadibna Mareykanka ku batay, haddana samaystay shirkad oo isagu leeyahay. Magaciisuna waa Sirthangi Bola. Waxa uuna yahay indhoole, haddana waa billionaire. Haddaba sidee buu ku maray marxaladdan? Ku soo dhowow. Shirkadda Bola, ninka indhoolaha ah ee sameeyay shirkad qiimaheedu yahay 650 milyan. Haddaba maanta waxaan fiirinaa taariikhda ninkan indhoolaha ah. Ninkan dhalinyarada ah ayaa wax uu maamulo ka yahay shirkad uu dhisay oo qiimaheedu yahay 48 milyan oo Gini oo u dhiganta ku dhowaad 650 milyan oo dollar. Balse arrintaas ma aha mid macquul ah. Isaga oo dhowr iyo toban jir ah ayaa si riqsan loo sheegay inay sharci darro tahay inuu dugsiga sare ka barto xisaabta iyo sayniska, maadaama uu indhaha naafo ka yahay. Sidaa darteed, waxa uu dacwad maxkamadeed u gudbiyay dowladda gobolka si waxbarashadiisa loogu oggolaado. Muddo 8 sano ah ayuu maalin kasta Sirkh Bola u lugeyn jiray isagoo 6 jir ah iskuulkiisa oo u jira dhowr kiiloomitir, waxaana hagi jiray walaalkiis iyo abtigiis oo ay isku fasal ahaayeen. Waddada aad bay u dhiiqa badnayd marka uu daadku yimaado, mana ahayn war farxad leh. Ma jiro qof ila hadlay maadaama aan ahaa cunug indhaha naafa ka ah. Haddaba sidaas ayuu yidhi. Waxaa dhalay waalidiin sabool ah oo aan waxba baran, sidaa darteed bulshada dhexdeeda waa lagu fuuqi jiray. Waalidiinteeda waxaa loo sheegay inaan xitaa waardiye noqon karin gurigayga mar haddii aan arkayn xataa haddii uu soo galo. Dad badan ayaa waalidka u imaan jiray iyagoo ka dalbanaya inay igu dilaan barkin ay afka iga saaraan ama sanka, ayuu yidhi ninkan hadda 32 jirka ah. Waxa oo dhan waa iska dhegatiran waalidiintiisa, wax ayna siin jireen garab buuxda. Markii uu 8 sano gaaray, aabihiis ayaa u sheegay inuu u hayo war farxad leh. Waxaa laga helay iskuul xanaano ah oo carruurta indhaha naafada ka ah wax lagu baro. Sidaa awgeed, qoyska waxay u guureen magaalada ugu dhoweyd oo lagu magacaabo Hyderabad, taasoo meesha ay deganaayeen u jirtay qiyaastii 249 kiiloomitir. Xilligaas waxaa magaalada ka tirsan gobolka Andhra Pradesh. Inkasta oo uu fog yahay waalidiintiis, haddana aad buu u xiisayn jiray iskuulka, si degdeg ah ayuuna u aadi jiray. Waxa uu bartay dabaasha, sidoo kalena waxa uu bartay ciyaarta chess-ka iyo weliba kubadda cricketka, taas oo ciyaartay kubadda sharqanta samaynaysa oo weliba si uu u fahmo meesha ay marayso. Wax walba waxay ku xiran yihiin, ayuu yidhi, gacmo iyo dhago, sida uu sheegay. Wiilkan da'da yar waxa uu ku faraxsanaa waxyaabaha uu sameeyay oo hamidiisa ahayd, balse waxa uu sidoo kale ka fikiri jiray sida uu mustaqbalkiisu noqon karo. Mar walba waxa uu ku riyoon jiray inuu noqdo injineer, waxa uuna ogaa in taasi u baahan tahay barashada sayniska iyo xisaabta. Markii la gaaray waqtigii, waxa uu xushay maadooyinka muhiimka ahaa iskuulka oo ay ku dhahday maya. Waxaa lagu wargeliyay inay tahay sharci darro. Iskuullada Hindiya waxaa maamula ururo kala duwan, midna waxay hoos tagaan uu leeyahay sharci u gaar ah, waxaa hoos taagan maamul goboleedka ama dowladda dhexe, qaarna si gaar ah ayaa loo leeyahay. Iskuullada waxaa gacanta ku haya maamulka goboleedyada Andhra Pradesh. Sharcigiisuna waxa uu ahaa inaan qof ama carruur indhala oo indhaha naafa ka ah ayna xisaabta iyo sayniska baran karin, maadaama uu ku jiro sawirro iyo waxyaalo kale uuna aad u adag yahay. Waxaa loo oggolaaday inay taas beddelkeeda bartaan farshaxanka, luqadaha iyo culuumta bulshada. Sanadkii 2007 ayuu galay xaalad walwal ah, isagoo caqabad kala kulmay xeerarkan iskuullada aysan ka wada sinnayn. Mid ka mid ah macaamiisha oo lagu magacaabo Srinivas Takbili ayaa sidoo kale ka walwalay. Waxa uu ardaygiisii yar ku dhiirrigeliyay inuu tallaabo qaadi waayo. Labadooda oo isla socda ayaa u tegay guddiga maamulka dugsiga sare ee gobolka Andhra Pradesh si ay u gudbiyaan kiiskooda, balse waxaa loo sheegay inay arrintan ahayn arrin macquul ah.
waxay heleen qareen iyaga garab ka helaya kooxda maamulka iskuulka, waxayna diiwaan geliyeen kiiska loo gudbiyey maxkamadda sare ee Andhra Pradesh, iyagoo ka codsaday in isbeddel lagu sameeyo sharciga waxbarashada si ay ardayda indhaha naafada ah u oggolaadaan inay bartaan sayniska iyo xisaabta. Qareenka ayaa soo dagaalamay, ayuu yidhi Strasser, ardaygu khasab kuma aha inuu maxkamadda ka xaadiro. Inta uu kiisku socday, waxaa soo gaaray wiilka dhalinyarada ah war ku saabsan inuu jiro iskuul weyn oo magaalada Hyderabad ku yaalla oo u shaqeeya sharci ka duwan ardayda indhaha la'aana siinaya maadooyinka xisaabta iyo sayniska. Isaga oo ku faraxsan ayuu iska soo qoray iskuulkii. Waxa uu markaas noqday ardayga keliya ee indhaha naafada ka ah ee fasalkiisa dhigta, balse wuxuu yidhi waxay igu soo dhoweeyeen gacmo furan. 6 bilood kadib, waxaa jiray war ka soo baxay maxkamadda oo sheegaya inuu ku guuleystay doodiisii ama kiiskiisii. Maxkamaddu waxay ku xukuntay in ardayga indhaha naafada ka ah ay baran karaan sayniska iyo xisaabta marka ay gaaraan dugsiga sare. Ninkii dhalinyarada ahaa waxa uu dalka ku laabtay iskuulkiisii, waxaana bilaabay barashada maadooyinka uu jeclaa, xisaabta iyo sayniska, isagoo imtixaanka celcelisaan wuxuu keenay 98%. Qorshihiisa ugu weyn waxa uu ahaa inuu dalbado machadka ugu sarreeya Hindiya ee loo yaqaan IIT ama Indian Institute of Technology ee lagu barto injineernimada. Hase yeeshee, dhammaan laamaha ka tirsan machadkaas way diideen inay qaabilaan. Isla markiiba wuxuu jaamacad ka dalbaday Mareykanka, waxa uuna fursad ka helay 5 jaamacadood oo kala duwan. Ugu dambeyntii, waxaa ku biiray jaamacadda MIT ee ku taalla gobolka Maharashtra, halkaas oo uu ku noqday ardaygii ugu horreeyay ee dibadda ka imaada ee indhoole ah. Waxa uu gaaray 2009 maalmihii ugu horreeyay, waxa uuna tilmaamay kuwa uu la kulmay waayo-aragnimo kala duwan. Haddaba, ilaa waa nin wax go'aanayana, waxa uu intuu waxbarashada ku jiray uu dhinac kale la kulmay hay'ad aan faa'iido doon ahayn oo dadka indhoolaha caawisa. Waxa uu lacag u ururiyey Hyderabad oo ah meesha uu ka yimaaday, oo uu ka dhisay maktabad aad u weyn. Noloshu si wanaagsan ayay u socotaa. Waxa uu ka qalin jebiyey MIT isagoo qaatay shahaadada sayniska dhinaca maamulka. Shaqooyinka badan ayaana loo yaboohay, balse waxa uu ogaaday in uusan joogin Mareykanka. Marxaladdii uu ku soo maray iskuulka amaba heerkiisa waxbarasho, horkutaalo weyn ayay ku reebtay. Waxa uuna dareemaa inay jirto shaqo uusan dhammaystirnayn oo uu ka sugaynin waddankiisa, maadaama uu yahay kii uu kusoo tacbelay waddankiisa. Guushu kuma xirna inaad haysatid lacag, inaad 6 dhammaystiran tahay. Haddaba, ninkan isagoo indhoole ah ayuu ka dhabeeyey guushii uu u noolaa. Qof aan hadaf lahayn waa ari dhintay oo kale. Haddaba, maanta ninka heerkan gaaray nin wuxuu ahaa Hindiya ku nool, weliba Hindiya ma waa baadiyaheeda. Asagoo 6 jir ah ayuu u safri jiray siduu iskuulka u barto. Haddaba, maanta ninka Hindiyada aragnay intaasoo kun oo malyan ah ama 1 bilyan ku dhawaad ah, ama inay ka badan tahay aan u malaynayo. Haddaba, halkaas ayuu waxbarasho gaaray. Adigoo maanta Soomaaliya jooga ama Afrika jooga ama dibaddaba jooga, maanta inaad waxbarasho aadid habeenkii xal aadid waxaa rabtaa inaad jaamacad aadin ee TikTok aflaad ku jirtid. intaasna waa yacnaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.